socdaalka oo kuurgalka ah ee madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku tagay magaalada Beledweyne waxa uu qayb ka yahay dhamaystirka howlaha gurmadka qaran iyo dul istaaga xaaladda bini'aadanimo ee ka dhalatay fatahaadaha ku dhuftay deegaano hoos yimaada gobolka Hiiraan. madaxweynaha oo ay weheliyeen madaxda heer dawlad goboleed ee Hirshabeelle iyo kan maamulka gobolka Hiiraan ayaa kormeeray xaddiga biyaha dhex qulqulaya xaafadaha magaalada iyo saameynta ay ku yeesheen nolosha bulshada taas oo si weyn u muuqatay. runtii waa wax aad iyo aad looga naxo waxa weeye waa musiibo waa qadar Allah qadaraha Allahna waa aqbalaysaa laakiin ma qoonsanaysid waa wax Ilaahay wato oo awoodeeda naga weyn hadda markaan soo dulmareen dhulka xaqiiqatan waa arkaysaa wax naga awood badan inay tahay wixii aan soo aragnay sida biyaha u fadhiyaan dhulka iyo hadda markii aan tagnay anaga naftigeena oo aan dhex galnay magaalada inta ay biyaha joogaan oo dadka caadiga ah ee nolol maalmoodkooda u socda ay biyaha u dhex socdaan u adeeganayaan si normal ah waxa weeye waa wax awoodeena ka weyn laakiin bini aadan baan nahayo waa u diyaar garoobi karnaa waa yareyn karnaa laakiin qadar Allah cid celin karta ma jirto. waxaan u mahad celinayaa dawladihii runtii ka soo jawaabay baaqii dhowr casho ka hor aan u baaqnay inayna kaalmeeyaan oo gargaar noo fidiyaan oo gurmadka ka soo qayb galaan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa guud ahaan gaar ahaan dawladda Jabuuti oo noqotay dawladda ugu horreysay oo noo keentay wixii awoodeeda ahayd hadday tahay daawo hadday tahay biyo hadday tahay raashin waa walaal jira aad iyo aad ayaan runtii dawladda Jabuuti iyo reer Jabuutiba aan uga mahad celinayaa. madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa la wadaagay madaxweyne Farmaajo sababaha kordhiyay saameynta fatahaadaha oo uu muujiyay inay gaartay heer aad u sareeya. mudane madaxweyne fatahaadaanu waxay ku bilaabatay markii ugu horeysay tuulada Deefow la yiraahdo oo xuduudda Soomaaliya ku taala meel 5 kiiloomitir u jirta ayay biyahaas ka soo galeen 5 kiiloomitir waad aragtaan webigii meel 5 kiiloomitir u jirtay biyuhu ka bilowdeen balaca webiguna wuxuu ahaay biyuhuna waxay ahaayeen 3 kiiloomitir marka biyo 3 kiiloomitir balarkooda oo yahay webigana 5 kiiloomitir u jira oo ban webiga ahayn oo socda ayaa xuduudda ka soo gudbay waxay qabsadeen buurahaas hadda nagu taadanood u jeedo jawiil iyo muxuu ahaay kala beer buurahaasay qabsadeen waa soo gadoomeen markay soo gadoomeen tuulooyinka u dhaxeeya Beledweyne iyo muxuu ahaay Deefow fatahaada yar yar oo webiga waa ka dhacay laakiin markay biyahaas yimideen tuulada la yiraahdo Bacaad oo wax 10 kiiloomitir ka yar u jira magaalada Beledweyne ayay biyahaas mar labaad webiga dib ugu soo noqdeen markaas webiga iyo biyihii soo noqday magaalada qarqiyeen. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in loo istaago xal u helista dhibaatooyinka fatahaadaha oo ku soo laalaabtay gobolka. marka in alla intii karaankeenna ah iyo ciddii khusayso hadday tahay dawladaha dariska iyo hadday tahay cid kasta oo aan la kaashan karno inaan yareyno ama aan ka hortagno runtii musiibadan hadduu Ilaahay yiraahdo annagana naftigeenna qof walba inuu isxilqaamo oo ku talagalo inay imaan karto dhibkan iyo dhib la mid ah. dhowr diyaaradood oo sida raashin iyo daawo ayaa madaxweynaha kaga sii horeeyay magaalada Beledweyne kuwaasi oo hordhac u ahaa booqashada madaxweynaha oo rajo iyo fifaalo wanaagsan buu ahaa kumanaan qoys oo ku barakacay gudaha magaalada Beledweyne kuwaasi oo ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle oo qarqarada goostay waxaa si aan kala go'ol lahayn u soconaya gurmadka loo sameeyo dadka kuwaasi oo ay wadaan guddiga qaran ee gurmadka iyo sidoo kale qaybo si xilkooda markaas isku xilqaamay. Idiin Macallin Cabdulla warbaahinta qaranka magaalada